Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada ceeb lacuud. Waan idinka maqnaa wax badan raalli ahaada. Adduunku waa iska taqaanaa qof wada mashquul, nolosha wax badan isbedelaysaa. Bal alxamdulillaah waa la caafimaad qabaa. Idinkana intaas inka badan ayaan idiin rajaynayaa. Berrito waxa weeye Jimco caawa maqribkii ka bacdi ilaa iyo berrito maqribkii salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan idiin soo gudbinayaa faa'iidada leedahay akhriskeeda. Waxaa kaloo halkan ku jira 3 ama 4 sheeko oo dad badan oo xanuunsaday oo ilaahay caafimaad ugu soo dhiibay suuratul faatixa. Marka aad iyo aad aniga way ii anfacda suuratul faatixa. Every time oo xanuun i qabto ama qof familkayga xanuun qabto kaniini waxaas doonta waa la dhahaa no problem, laakiinse waxaa kasii fiican inaa horta faatixada ku bilowdo, faatixa ku akhriso mar walbaba. Haddaan run idiin sheega maalin jilib ayaa i xanuunay aniga, xataa salaada igu adkaatay. Anina ma cuslaada miya ma aqaan, kulleyba salaada igu adkaatay. Marka waxaa dhacday waxaan dhahay you know what, jilibka maxaa la marin karaa? Oo kariib baa maantay waxaas mari waxaasaa laygu dhahay. faatixadaan soo qaatay waan isku akhriyay intaan gacanteeda tugtug ku dhahay akhriyay 11 faatixaan waliba akhriyay 7 waan la akhriyaa meelna 11 aan ka akhriyay marka 11 aan akhriyay waan ku wada laba bes saddex beri ka bacdi fay waan ka booday marka alxamdulillah idinkana bal qofkii xanuunsan sameeya biyo ku akhriya quraan cabba haddii calool niga lahayo haddii meel niga lahayo sheekooyinkan aan idiin sheegayana oo hadda qisooyinka yararka ah dhageysta insha Allah. Marka hadda aan idiin bilaabo qisooyinka kan koowaad. Qofkan wuxuu yiraahday waxaan si joogto u akhrin jiray salaatul ibraahimiyya min muddo ah. Alxamdulillah ilaah baa mahad leh. Ugu dambeyn waxaan helay shaqo aan weligay xitaa ku riyoon karin oo leh mushahar wanaagsan iyo meel oo shaqo fiican atmosphere iyo shaqooyin qaarkood buuq iyo qaylo iyo dagaal iyo waxaas oo toxic way laakiin meel fiican oo degan oo qabow ayaan ka helay ayuu qofkan dhahay. Haddii aan ogaan lahaa in tani ay tahay furaha guusha iyo success hore ayaan u bilaabi lahaa sanado ka hor. Waxaan shaqo la'aan ahaa muddo dheer oo sanado badan ah. Alxamdulillah ilaahay ayaa igu dhaliyay fikirkaas isagaa igu hanuuniyay salaatul ibraahimiyya. qofka labaad wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan idin wadaago qisadeeda la xiriirta salaatul ibraahimiyya. Muddo ku dhow 1 bil qalbigayga waxaa ka buuxay walwal iyo culays nafsiyeed. Waxaa la soo dhibtoonaaday dhibaatooyin aan u arkay mid aan xal u lahayn oo meel aan ka maro aan waaye jiq ay igu noqotay. Waxay ahayd arrin aad iyo aad ugu cuslaatay laakiin waqtigaas waxaan si joogto ah u sameynayay mararka qaarkood waxaan oran jiray oo kaliya sallallahu alayhi wasallam laakiin mararka kale tan waxaan akhrin jiray salaatul ibraahimiyya oo dhameystiran sida allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. kaas horta waa salawaadka dheerka kan dheerkane haddii xataa aad 100 akhrinaysa camal ama 300 akhrinaysid waqti fiican ay qaadanaysaa laakiin maasha Allah noloshaada waa arkaysaa si isku bedesho. Qofkan wuxuu ku sii daray maalin walba oo jimcaha waxaan akhriyaa salawaadka maalintii subaxdii ilaa iyo habeenkii si joogto ah ayaan u akhriyaa. Markii aan salaatul ibraahimiyya akhrinayane waxaa maskaxdayda ku hayay dhibkaygii oo dhan oo haysta ayaan horteeda hortaalay ayaan iska fakarayay. Waxaan sabirtay inaan xaliyay qalbigaygii iyo fikirkaygii waxaa gelinayay inaan dhibkan ka baxay. Isbedel degdeg ah ayaa markiiba helay. Ilaahay baa marqaati iiga ah. Xitaa bilka ma soo wareegan ducadeydii si sax ah aan u rabay ayaa laga aqbalay. waan fajacay qalbigeyguna wuu gilgilay xitaa erayo mahadnaq xataa waa iga soo bixi waaya afkeyga. Waxaan la yaabay sida ilaahay uu u dhageystay ducadeyda. Talo aan idin siiyey marka qof walba oo sugaya isbedel idin fududays qofkan ayaa idinla talinaya salaatul ibraahimiyya si joogto ah u akhriya. U samee adigoo kalsooni buuxda ku qaba ilaahay iyo iimaan. Wuxuu kuu furi doonaa albaaba aadan filanayn. ilaahay qofna marna ma dayaco. Alxamdulillah mar walba iyo mar kastaba. Qofka saddexaad wuxuu dhahay waxaan guursaday ninkii aan jeclaa oo aan weligay ku riyoon jiray. Waxaan si joogto ah u akhrinayay salaatul ibraahimiyya anigoo kalsooni buuxda ilaahay ku qaba. Alxamdulillah isagii ayaa ii yimid oo i soo doontay. qofka afraad wuxuu yiri ninkaygu wuxuu lahaa dabeecad aad iyo aad u xanaaq badan mar walba wuu qaylin jiray caruurtan xataa
ma uusan u dulqaadan jirin. Markii aan meel u baxnana bixitaanka maalintaasoo dhan wuu naga qasi jiray isaga dagaalkiisa iyo xanaaqiisa. Xitaa haddii aan ka codsado inuu jidka markuu soo maraayo uu rooti noo soo iibiyo wuu diidi jiray. Waxaan go'aansaday inaan aqriyo salaatul ibraahimiya maalin kasto. Muddo bil ah ayaan waday. Subxaanallah, si buuxda ayuu ninkaygii isku bedelay. Qof wuxuu ku soo baxay maasha Allah oo aad u isku bedelay. Wallaahi mararka qaarkood waxaan u ooyaa farax darteed markaan arko sidii uu Ilaahay iga aqbalay ducadeyda oo ninkeeda uu bedelay. Ha oranin ninkeyga marnaba isma bedeli karo, wuu isbedeli karaa. Naxariista Ilaahay ayaa bedeli karta qof walbaba. Wallaahi ninkeyga wuxuu noqday qof kale oo gebi ahaanba ka duwan siduu ahaa. Qofka shanaad, wallaahi eebaha aan cidna la wadaagin xaq in lagu caabudo. Waxaa bilaabay akhrinta salaatul ibraahimiya saacad ka hor salaada maqrib markastaba. Maalintii xigtay ka hor intaan maqrib la gaarin waxaan helay shaqo aan xitaa codsanin oo aan dalban. Waa ii timid anigoo gurigeyga jooga. Runtii ha ka tagin salaatul ibraahimiya weligaa. Qofkan wuxuu yiraahday lixaad, alxamdulillaah iyo salaatul ibraahimiya aan bilaabo darteed Ilaahay wuxuu igu toosiyay inaan tukado salaatu tahajjud iyo fajr. Inta xataa arrinta kuma ekaanin dadkii oo aniga aan arkayay oo nolosha maalmeedkayga dhan aan arkayay aan aqaanay waxay bilaabeen inay ila dhaqmaan si naxariis iyo qadarin mudan. Xitaa waxyaabihii yaryaraa aan qalbigayga ka rajaynayay oo nafteyda ay rabtay Ilaahay wuu ii soo rumeeyay oo wuu ii keenay. Wax dadka kale ay u arkaan wax yar, aniga laakiin wax weyn ii ah ayaa qalbigayga taabanayay ayaa Ilaahay ii sahlayay. qofkan tusaliga nabiga raad hadda ugu dira uu yiri Ilaahayo nabad in naxariis ku soo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ehelkiisa. Qofkii toddobaad muxuu dhahay Ilaahay fadligiisa iyo salaada ibraahimiya dartood waxaan bilaabay xifdinta quraanka, tukashada habeenkii iyo inaan raaco jidka hanuunka. Hore waxaan ugu noolaa mugdi iyo jahli, laakiin maanta waxaan ahay gabar gabi ahaanba ka duwan sidii hore. Hadda waxaan si joogto ah u tukadaa fajr iyo sunnooyinka kale. Nolosheedana si buuxda ayaan dib ugu habeeyay. Wax kasta oo qalbigayga ku jira xitaa kuwa aan afkayga ka sheegin Ilaahay wuu ii keenaa oo wuu ii rumeeyaa. Waxaan aad u jeclaaday xuska Ilaahay. Waxaan u haystaa sidii hanti qaali ah oo aan marnaba doonin inaan lumiyo. Waxaan rajaynayaa in qof walba uu dareemayo jacaylkaas iyo rabitaankaas Ilaahay dhinaciisa ka socda. Ilaahayo nabad iyo naxariis ku sug nabiga sallallahu alayhi wasallam oo naxariistaadana u dir sallallahu alayhi wasallam. qofkii sideedaad muxuu yiri 2 maalmood ka hor saaxiibtii ayaa soo wacday eedo oynaysa xitaa hal xabo oo rooti ah maysan haysan. Cunugeedii caano uu cabo xitaa guriga uma oolin. Wax lacag ah haba yaraatee ma aysan haysan. Habeen walba way oynaysay oo inta meel cidla ah isku xirto qol ayay si joogto ah u akhrin jirtay salaatu ibraahimiya, suuratul ikhlaas iyo suuratul faatixa. Maanta ayay soo wacday iyadoo farxad wada war farxad leh. dad deeqsi ah ayaa u soo diray lacag waxayna awooday inay carruurteedii quudiso. waxay tiri u sheeg Ilaahay wax kasta oo qalbigaaga ku jira mar walbaba waxaad arki doontaa adigoo lagu gargaaray oo Ilaahay gargaar ku soo diray. qofka sagaalaad qisadan waxay la xiriirtaa salaatul ibraahimiya. muddo 17 sano waxaan la dhibtoonayay il xun, kadibna waxaa igu dhacay sixir. waxaa ii sii raacay xaasidnimo. 5 sano oo isku xigta ayaan waxaan dhan la rifaadsanaa. waxaan isku dayay wax walba, culimo badan ayaan u tagay, laakiin wax walba waa la ii qaban waayay. waxaan kala tagnay ninkaygii, ilmahaygiina waa la iga qaatay, timahaygii way iga daateen. shaqadeedii marmar ayaan ka maqnaan jiray maxaa yeelay xitaa sariirta kama kici jirin. markii dambe waan guursaday, laakiin noloshii waxay ahayd mid adag. muran iyo khilaaf joogto ah baan dhex mari jiray aniga ninkayga. xitaa mararka qaarkood waxaan ku fakari jiray inaan nafteedii ka taqalluso. waxaan bilaabay inaan sadaqa bixiyo oo aan siiyo cunto kuwa sooman muddo sanad ku dhow. markaas ayuu Ilaahay igu toosiyay sheekh i caawiya, kaasoo si gaar ah ii daneeyay xaaladayda. xitaa ninkayga si toos ah ayuu soo wici jiray si uu ballamo igu dhigo waqti xagga ruqyada si laygu akhriyo. maalin maalmaha ka mid ah waxaan riyo ku arkay qof dhagta iigu sheegaya salaata ibraahimiya. waxaan go'aansaday inaan si dhab ah aan u dhageysto taladaas oo akhrinta si fiican u akhriyo. waxaan bilaabay inaan bil dhan ah joogto ah u akhriyo salaata ibraahimiya. wallaahi sixirkii iyo xaasidnimadii Ilaahay baa iga qaaday. waxaan hore ugu noolaa walwal joogto ah, laakiin hadda waxaan leeyahay deganaan iyo xasilooni qalbigayga gudihiisa. xitaa haddii dhibaato igu dhacdo weli waa deganahay oo xataa isma waali, maskaxdeedu way qabowdahay. hadda bal imagine qof caan ah hadduu ku ammaano
oo dad malaayiin hortooda kugu ammaano sidee dareemi lahayd? bal ka waran hadda tan ilaahay qudhiisa hadduu kugu ammaanayo 10 jibbaar oo malaa'ig aan tiro lahayn hortooda kugu ammaanayo. Tan waa abaalkii diritaanka oo diraysa salawaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam. sidaa darteed ha dayicin salaata ibraahimiya. waxaa laga yaabaa in furaha noloshaadu ay ku xiran tahay hal salaan u dirto nabiga calayhi salaatu wasalaam. qofka tobnaad marka sheekooyinkan hadda waxay bilaabanaysaa waa 4 sheeko mise waa 5 sheeko, 4 u malayna. waxay ka hadlaysaa dad xanuunsan ilaahay siduu caafimaad ugu soo dhiibay suuratul faatixa. okay, qofkan waxay tiraahday waxaan qabaa calool xanuun oo dhibaato weyn iga soo gaartay. waxaan qabay xanuun caloosha ah. isbitaal kasta waan tegay, daawo kasta waan isku dayay, xitaa inaan isgubo waan soo maray. ugu dambeyn waxaan u noqday suuratul faatixa. waxaan ku akhriyay biyo, markaasaan cabi jiray anigoo niyeysanaya in la i daaweeyo. waxaan gacanta saari jiray meeshii i xanuunaysa. waxaan akhrin jiray suuradda anigoo tirinayn. wax badan baa iska akhrin jiray. alxamdulilah, ilaahay caafimaad iyo nabad buu igu siiyey. qofkii 11aad, qofkan wuxuu isaga ka bogsooday calool xanuun iyo dhibaatooyinka mandhicirada ama qabsinka, I think in la dhaho. waxaan ka cabanayay calool xanuun iyo dhibaato mandhicirka IBS. wax kasta oo aan cuno ama aan cabo waan matagi jiray. lacag badan ayaan ka bixiyay daawooyin iyo baaritaano badan. arrintan waxay noqotay sanadkii hore ilaa iyo bishii November 2023gii. markaas ayaan iri habeen walba waxaan isku akhrin doonaa suuratul faatixa koob biyo ah anigoo niyeysanaya caafimaad taam ah. markaasna waa cabayaa. wallaahi bishaa xitaa maysa dhammaan markaan si buuxda u caafimaaday alxamdulilah. kadib in ka badan 1 sano oo xanuun i hayay, bil xataa maysa kasoo wareegay markuu ilaahay igu caafiyey suuratul faatixa. hadda waan cuni karaa wax kasta, biyahana si caadi ayaan u cabi karaa anigoo wax dhibaato ah aan dareemeynin. alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah. qofkii 12aad wuxuu dhahay isbitaalada ka mid ah ayaan joogay. waxaan arkay hooyo ooyeyso oo ag fadhida wiilkeedii oo xanuunsan oo mandhicirka ka xirmay. qabsinka mandhicirka kuya ma aqaan, kolley mandhicirka u maleynaa. isla markaasna loo qorsheynayay in qaliin lagu sameeyo si loo furo. waxaan ku akhriyay suuratul faatixa ilmaha. ilaahan ku dhaartay markii qaliinkii u kaxeeyeen mandhiciradiisii oo dhan wixii blockage ahaa ama xirmo ahaa lagama helin. wixii oo dhan caadi bay ahaayeen, everything caadi ku soo baxay. qofka 13aad wuxuu dhahay sanado badan ayaa waxaa ilaahay ka baryay inuu i caafiyo oo lafahayga oo lafdhabarta daawooyina waxba igama tarin. bilihii u dambeeyay waxaan daawaday YouTube channel oo ka sheekeynaya suuratul faatixa iyo adkaar. waxaan bilaabay inaan suuratul faatixa akhriyo 1 week oo buuxa 7 jeer ama in ka badan maalin kasta anigoo kalsooni buuxda ku qaba Allah subxaanahu wa tacaala. wallaahi ilaahay awoodiisa ayuu lafahaygii oo dhan dib u soo nooleeyay. alxamdulilah, fadligiisana wuu igu bogsiiyey. markastoo aan suuratul faatixa ku akhriyo dhibaato adag way isu furtaa dhibaatadaas oo way hagaagtaa. talo ahaan akhri adigoo kalsooni ku qaba ilaahay, kuna maqlaaya. hana dayicin inaad akhriso tafsiirkeeda si aad u dareento macnaheeda. aniga biyo kuma akhrin jirin, laakiin intaan indhahayga isku xiro ayaan ku akhrin jiray 7 jeer maalintii in ka badan anigoo ilaahay qalbigayga si buuxda ugu jeedo oo hubo inuu i maqlaayo. qofkii 14aad wuxuu dhahay laabjeex qofkaanito ayaa hayay dhibaato ah. ilaahay fadligiisa kadibna suuratul faatixa darteed waxaa iga baaba'ay gaaska caloosha iyo laabjeexa iyo xanuun oo jilibka layga hayay. waqti yar gudaheed waxaan awooday inaan si caadi ah u socdo oo jilibkaygii ladnaado sidii qof aan xanuun hore u haynin. suuratul faatixa ayaa i daaweysiisay ilaahay idinkiis. waxaan si toosa ugu akhrin jiray meeshii i xanuunaysa. mararka qaarkood waxaan ku afuufi jiray meesha, mararka qaarkoodna gacanta intaan saaro meesha xanuunka ayaan akhrin jiray suuratul faatixa. mararka qaarkoodna intaan ku afuufi jiray dharka hoostooda, micnaheeda meesha skiinka maqaarka. caafimaad si degdeg ah ayaan u heli jiray. bilowgii kalsoonideydii waxay ahayd daciif, sidaa darteed aad baan ugu celcelin jiray akhriska. laakiin
markii kalsoonideedii soo kortay waxaan qalbigayga ku iri sideen ugu daawoobi waayey suuratulfaatixa iyadoo allah subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay qur-aanka waxaan usoo dejinay caafimaad iyo naxariis dadka mu'miniinta ah inay daawo ugu noqoto rasuulka sallallahu alayhi wasallamna wuxuu sheegay in suuratulfaatixa ay tahay ruqya markaas waxaan iri ilaahay iyo rasuulkiisa baa run sheegay taas ayaan kalsooni igu dhalisay waxaan iska fogeeyey inaan ku tiirsanaado xooggayga iyo kartidayda waxaana isku dhiibay awoodda iyo xooggii allah subxaana watacaala hadda markaan hal mar aqriyo suuratulfaatixa waxaan dareemaa caafimaad waxaa sidoo kale ku aqriyaa caruurtayda alxamdulilah markasta way bogsadaan si dhaqso ah talo aan idin siiyo qof kasta rabbigaaga ku kalsoono iimaankaagana adkee maasha allah tabaaraka allah dhammaan mahad allah baa leh subxaana watacaala marka qofkani tota sheekada way dhamaatay alxamdulilah marka sheekooyinka dhanna way dhamaadeen marka faatixada qof walba markuu xanuunsan yahay hadduu madax ku xanuunayo hadduu jirib ku xanuunayo haddee gaas ku haayo markasta faatax biyo soo qaado faatax badan ku aqri isku shub ama masmari ama meesha ku aqri ama cab koleyba ilaahay caafimaad dadka dhan ha ku siiyo ummadda muslimiinta ah ilaah wixii dhibaataysan dhib allah ka saaro ilaah wixii muraadka u baahan ilaah u sahlo ilaah dadkii anaga jidka toosan lagu hagan ilaah naga dhig oo dikirkaaga markasta oo xuskaaga sameeya ilaahay noo fududeeyo adduunkaani aakhiraba marka insha allah waa mahadsantihiin walaalayaal sida aad maasha allah iigu dhegeysataan khayr allah idin siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu